السلام عليكم صاحبي السوري وهذا ما توحان إذن وضع مقال حيسا قارة أنا يقول سامين يقول سيدا أن أسميه يقابكو كو إمادين الشيكتي صار بأينا إذن لو ذاك أنت إنا مقال كداون كور مقال كان أن وحكو إمادي وحكو لنا إنين قال أو إنجليزا أو فشيستا oo dadkii gumaystaha aad u taageersan markaas wuxuu aad ugu faanay in wixii uu Soomaaliya Ingiriisku ka sameeyay xilligii ay gumaysanayeen Soomaaliya iyo dhibaatadii u geystay iyo sidoo dadku xasuuqay iyo markaas wadana wuxuu ku sii faanay in wixii oo maartay inuu ilbaxnimada nagaarsiyo annaga oo badawiina oo adduunyada iska nool inuu ilbaxnimada ka nool la'aantiis ana waxba ahaan lahayn wax noocaas oo kale oo runtii aad ii xanaajiyay intii aan difaaci karay waa difaacay aragtideeda laakiin markii uu iga tagay kadib waxaan macna sheekada ugu soo noqotay sida maanta naalno iyo qaabka maanta Soomaalidu u taalay waxa keenay in xataa hadeer hadal noocaas oo kale qofku ugu leeyahay daciifnimadaas oo kale inuu hadalku ugu leeyahay waxa keenay waxa maanta aan ku suganahay laakiin anyway muuqaalka markaas ugu dhashay inaan sameeyo muuqaalkan waxaana waaye saddex shay ka kooban yahay gabaygii oo koofiyo adaan joogin dunidaan كوفي وأداة تيتي أو أنشوجين دنيا أنا قبل الله سيد محمد عبد الله سميه أو لو عبر عن قال أو إنجليز أو ما نتي أنت دولة سوق قاعدين أنت لقبتها للدليل مركز وصور على سيدي للدليل نيجي الله الدار ما بقول مركز آخرتك تين عادات كل جلسة أساسا للدليل سيدي للدليل وصور على مركز it is beautiful scene واي أدو قرح بدن قبل مركز أسورتي ماشي أدو شو قال لي كهر ماني سوف تجستيه ودتك كوسو دولي إسكندي عني سيد سيفت هذا قال كبحسن تاعي ديجو كده حسوق يصير sheekadaas raaxmeera waa sheeko lagu raaxaysto waa runtii oo aad u qurux badan waa marka taas keentay inaan muuqaalka sameeyo marka gabaygii iyo hees liiraahdo Soomaali waa kuma oo sharaxaysa qofka Soomaaliga iyo sidoo uu yahay iyo wax uu yahay sharaxaysa iyo wuxuu ka kooban yahay music oo dhiirigelina oo la ku dhahaysa oo aan ugu talagalay inay damiirka kiciso iyo wuxuu ka kooban yahay muuqaalka oo aan ka soo aruuriyay filimka Turkiga samayso oo khatar oo sidaas oo kale qisadiisa maxamed Abdul Xasan oo kale amal Turkiga xilli ay la dagaalamayay gaaladii wadamaas ay ku qabsadeen ay xuduud lahaayeen ka hadlaya oo filim noocaas oo kale muuqaalada aan ka soo aruuriyay oo aan muuqaalka saaray marka ila daawada muuqaalka sheeka xiisa la waa runtii aniga waxaan ugu talagalay inaan damiirka ku raali geliyo oo aan xanaaqi oo isaga baabi'iyo inaan sawirta maalintaas inaan joogo oo aan dagaalka isku filowjiitayaan dunida joogayne adiga jidkii lagugu waday jimiclaaneede jahanamo la geeyo wadaakhiro jahanne nimankii jannu kacay warbay jiriin shaleye kuwaasa naarta joogiyo markaad janaanadii gaadhi siduu eebbahay ku jirrabay mari jawaabteede daraawiish jigraar nagaana daytaniyo jeergeedhe jigta weerar bay goor barqacaanagu jifeeyande ingiriis jadno waxaa ku dhacay shaciyo baaruudale weligiisna waa lagu jarshaa jirin jigduulandhe haddaan laystikraarayn kolkay laga jiboonaande waxay noo jundulteenna waa jamaashadiinine anigana jigreeya inay shalay jahaadkeenne sheeniga hortiisay rasaas igaaga jiidande jidhaayaday ilaa dhixin jiri xafkoodiine jidhkaygii khasaarey amleysaga kufriyende siday kuugu jeheen magniga bilaawuhu siduu ku tartaray shirarka umooje jibaadkayga soo baxay nafluhu jiifka qaalan waadhe nafjeclaysigiibaa
كويري كالوي قداني دمي كغام هير سوق مدان جري يفوحيني بورتان جريرا قولو كشنغا وحبادا بانشرا حيدك بانشرا ليسين شكري على يرو كيجيغا جسيين توتلي حريبا وابني تشكي صورو غيد سيدا لريبي ينوكو كلامين markay robaadu dawtiri urbeysiga duljeegteende jirkaygii baalba urayoo jiitay hilibkiide jirniiriyo baruurtii dhurwaajug kasiyaadhe Tariyo fena tu kejiga gacharende Siri chanari hore tashibu ibu sagugnade Jitki u ibleki horgai jafadere rainde Darawishna wakeren daw iyo jawga soobexeene saaxiibayaal la socda muuqaaladeeda dambe channelkaygana soo follow gareeya si aad u heshaan muuqaaladan iyo muuqaalo la mid ah nabadey